waxaan u fadhinaa in aan kaga hadalno berbera oo laga dhigayo saldhig imaaraadka carabta ummadda Soomaaliland way ka soo horjeedaa arrintaas in waxoogaa maamulka aba arrintaasi wata dadweynaha Soomaaliland ma ogola waxaan leenahay arrintaa mid la isku gaaro oo laga baaraandago oo haddii la diidiyo haddii la doono heshiis lagu yahay inay noqoto baanbaaqayaga ka dhigaynaa oo haddii intayna la cararaysay ay ka dayso sida nabadgelyada iyo wadajirka iyo Soomaalilandnimada u fiican baanay annaga nala tahay sidaasi gooni ula orodka laga daayo saldhigga iyo militarigu wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan ayuu leeyahay oo hadhow laga soo kaba karin oo lagu calaacali doono waxaan leenahay hal la isku gaaro hal laga wada tashado dadku dhan ha isku raaco oo waxaan leenahay inta la cararaysuuni anay hawlahaas hareerahana aan eegno dariisyadeena laftoodu sida ay raalli ka yihiin lafteeda aan la soconno waxaan leenahay arrinta laga baaraadago dibna ha loo dhigo ha laga wada tashado berbera oo markii hore marmo badani ka joogay ayaa waxa ku biiray baa la leeyahay in la bixiyay saldhig military sida darteed saldhigga militarina wax dhib yar ma waxaanu halka ku baaqaynaa in la joojiyo oo dawladdu dadka ay u taliso mujtamaca inay raacdo waxay ogol yihiin oo ah inaanan aqlabiyada Soomaaliland aynan diyaar u ahayn in saldhig military halka laga bixiyo waxaynu ognahay inta imika aad ku baaqdeen idinku oo leedin 70 kilomitir dhul leeg oo ayna gelin oo dawladda imika bariga hore ka tirsanay jaarkana ee Soomaaliyeed inta in leego ay bixisay baa jirta oo madaxweynuhu booqasho u taagi karin oo taliyaha ciidamada booqasho u taagi karin ma sidaas aad inagu wadaan wax joogana lama yaqaan waxaan leenahay waxaasi suurtagal ma laga daayo dadka iyo dalka waxaan cidnaba u danaynayn hal laga daayo baan leenahay waxaan ugu baaqaynaa golayaasha qaranka waxaan ugu baaqaynaa inay Ilaahay ka baqaan inay dalka u tudhaan inay dadka u tudhaan inaanay codka baaqa loo soo wado qaraarka loo soo wado inaanay ansixinin baan ka codsanaynaa mar iyo laba iyo saddex cod dheer waxaan ugu sheegaynaa inaanay ansixinin oo Ilaahay ay ka baqaan oo dalka ay u tudhaan malaha waxay u haysatiin labada gole inay dhaartu gabowdo tadaad 20 sano iyo 10 sano meesh joogteen malaha qaranka iyo dalkii aad u dhaarateen dhaartaasi malaha way gabowday baad leedihiin waa ku xisaabtama dhaartu ma gabowday waxaad u dhaarateen in dalka daacad u tiiniyo dadka sidaa darteed waxaan idin leenahay dhammaan annagoo ummadda Soomaaliland ay daawan doonto hadalka kuwa hore badan la daawaday ha loo turo dalka iyo dadka raalina kama yihiin xukuumadda waxaan leeyahay anigu madin maayo waa inay tixgeliso rabitaanka shacabka kacdoonadii hore ee la ogaa ee xukuumadda imika u talinaya qudhoodu ay ka kaceen waxaa kamid ahaa rabitaankii shacabka oo la tixgelin waayay wixii xukuumadda aad ka kacday xukuumadda Soomaaliland ku dhalatay waxay ahayd rabitaankii shacabka oo xukunkii militariga haadiday Soomaaliland wixii aad ka baxdeen warde haddaad shacabka wixii ku samaysaan oo caburisaan de shacabku miyaanu dhiidhiyaynin anigu waxay la tahay in rabitaanka shacabka la tixgeliyo wixii ummaddu ay doonayso ayay xukuumaddu doonaysaa xukuumaddu ummadda ay xukuntaa waxay xukuumad ku tahayna waa ummadeeda oo ay kasbato kalsoonida ummadda oo la kasbada weeyaan haddaanad ummaddaad u talinaysa waad caburinayso afduubayso kii hadlaad xidhayso warde see loogu talinayaa ummadda anigu waxaan leeyahay rabitaanka shacabka la tixgeliyo saldhigana sida odayaasha iga horeeyay ay yiraahdeen ha laga fiirsadaan leeyahay horta waxa weey sida ay salaadiinta iga horeeyay odayaashu u sheegeen waan ku raacsanahay waxaan saleeyahay maanta maalin deked laga hadliyay saldhigeeba ma joogno
abaar baa waddanka aad uga jirta ood og tihiin oo baahsan oo kii bari ka yimid maanta uu jooga halka ugu shishaysa au shiliila gaadhay uu dhaafay dhulka xadkeennaba dhaafuu shiliila gaadhay oo dadkii maanta kuwii ay gaadheen iyo kuwii soo barakacay kuwii ay u yimaadeen ba isla barakaceen oo maanta wax alla waxay hayaan ayna jirin war kuwaasay ahayd in laga shaqeeyo oo loo gurmado oo wax la siiyo ee maanta inaan ku mashquulo dekada asaldhigiya iyo baysasiyo ku mashquulo ma ahayn waxa weeye in dadka aanu gurmano abaarahay ahayd inaan taa maanta ku mashquulaba maaha weli mana arag iyadoo la leeyahay maamulka lacagta abaaraha ugu deeqay oo mashaarkooda ku deeqayna maan araganu wax yar ummadda laga ururiyay mooyaane laga ururiyay wax iyaga wax ku deeqay maamulka maan arag weli oo sidaana jeebkooda ka deeqay oo mashaarkoodii bay bixiyeen iyagoo leeyahay maan arag mala jirto war waxa weeye ummadiina aad maamulaysiin u tura u daneeya intaad baysasiya ka shaqaynaysiin war dadka u shaqeeya maanta waad ogtiin halka ugu bariyaysa halka ugu galbeedaysa waddanku isku mid boqdo abaar baahsan baa jirto dishay abaarta ha loo shaqeeyo waxaana aan iska golayaashana waxa faraynaa war waxaan xukuumaddu ay wadatay iska daayo abaaraha ka qayb galo abaaraha u shaqeeyo wafdiyo u baxa oo dhulka soo mara oo dhulka aad u soo mara oo soo indhaindheeya ayaan leeyahay saldhigga in laga daaya saldhigga wuxuu inoo keenayaa cadaawad buu inoo abuurayaa cadaawad weyn buu abuuraya oo jaararka abuuraya dadkeenuna iskuma saacsan waa ka aragaysa ummadii Soomaaliland way ka horjeedaa maamulka waxaan leenahay arinta dib ha uga noqoto ka fariisado oran maayaan dib ha uga noqoto abaaraha ka shaqeyso dib ha uga noqoto danta ummadii abaaraha ka shaqeyso taasi oo maanta tahay saldhigga berbera laga bixinayo ee imaaraadka la siinayo dhibaatada uu u leeyahay Soomaaliland iyo cadaawadda uu gelinayo waa la iska garanayaa Soomaalidu waxa jiraada niman waalayni waaga barigiisa uu yaqaana jaarkeena waa lagu culoobayaa siiba waxaan maqlay wasiir leh waan iska celinaynaa xuutiyiinta oo waanu la dagaalamaynaa waa dagaal bay markaas sidibay afuufayaan in Soomaaliland lagu dagaalamo lagu hirdamo waxaan leeyahay Sanca ama Yaman gantaalaha laga soo tuuray haamaha shidaalka oo dhan way burburinayaan dekada way burburinayaan war hal laga daayo dalka iyo dadka dhibaatada iyo siirigan ay afuufayaan wasiiradu waxaad moodaa inay wasiiradani meel kale ka soo yimaadeen dalka iyo dadka ayna u tureenin war loo turo war saldhigaasi hadduu baxo oo la ogolaado haddii hilib dad lagu qalayo ma gali karo madaxweyne janan ma gali karo madaxweyne ku xigeen ma gali karo hal laga daayo halka waxa loogu tala gashan yahay macdanta meesha taale ee la og yahay in la daad gureeyo oo la raro oo wax laga soo dajinayo wax la qaadayba aan la ogaanin taasi bay ku salaysan tahay waxaan leenahay war dalka loo turo wasiirada waxaan leenahay dalka u tura baarlamaanka iyo golaha guurtida alla ka baqa ilaahay ka baqa kitaabkii aad ku dhaarateen ka baqa waxayna rogayba waa kitaabkii inta lagu dhaartay haddana cilmaanigii dusha laga saaray ee laynagu xukumayo war ilaahay laga baqo oo la toobad keeno abaarahana ilaahay naga jabiyo saldhigga berbera reer berberana dhibaato u leeyahay Soomaaliland oo dhan buu dhibaato u leeyahay haamaha way qarxin xuutiintu dekada way burburinayaan waxaan leeyahay ha laga noqdo kullay wala macneeyay waxa halkan loo yimid maanta waynu wada ognahay in dalkeennan Soomaaliland la yiraahdo qoonsi haysan dawladda qoonsi la bixisay saldhigyo iyo dawladda heshiis la gashay intaad ku mashquulaysan saldhigaad bixisaan qoonsigii raadiyo wadadii loo mari lahaa dib ugu noqdo inaynan tamar ahaan ciidan u dhisnayn baad ogtihiin inta
intaa waxay dheeroon aanu ku dari lahaanoo la qabo walaalahay waxay ku hadleen nimanka xukuumadda markay hadlayaan waddanka waa la wada leeyahay bari ilaa galbeed waxaan moodaa inay u hadlaan sidii hablihii markaan yaraa hees ciyaari jiray abaatuutiduyaday waynaga mar walba afar ilmaadeeruun baa tiifiyada soo joogsata waxaba inaan loo dhannayn baanu aragnaayoo cid geesii wadato shacabka cabaadayaan taageeraynaa ee reer somalilan ee waddaniinta ee leh saldhigaa ha laga fiirsado nabadgelyadana ha la ilaaliyo ummadda dadka aad xukuntiinna ha la dhegaysto saldhigan somalilan oo dhani ka hadlayso waa saldhig militarina kii somalilan ee dayb u ahaa waxaan leenahay ha laga daayo saldhigaa somalilan ha laga daayo militari horaa loo eeday ha laga daayo haddii laga dayn waayo wixii kii hore laga dhaxlay unbaa laga dhexli doonaa waxaan leenahay shacabka somalilan baan raacsannahay waxaa shacabku ku hadlaayo ha la raaco wasiirada inta kooban ee wasiirada ahee waxaan ogolaatay ayaanan ha ka noqdaan waxaa baarlamaankuna waxaa ha ka fiirsado oo dalka ha ka daayo oo ha u tidho dadkiisa baarlamaanka dad baa doortoo keenay dadkii keenay ee shacabka ahaa ha raaca baarlamaanku